هاليدي تراوش لقو هرتيو ويدي قاسي يده هيبة دليل شي الجماعة هيو صولي هذا صولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشيدا قيمها يا قايا لهو ملكسد عالمka naga daawanaysan kusoo dhawaada shabakada wararka Sela 24. maanta waxaan idin haynaa faal gaar ah oo aan ku eegayno Somaliland macalin bay u baahan tahay mise aqli xaaladii ugu dambeysay ee gobolka Sool oo meel cakiran maraysa dadkii talada lagala ordayay oo xilligan noqday dadka loola soo ordayo reer Somaliland sidee bay ugu baahan yihiin aragti ka duwan anigu aan cuno haddana aan idin caayo bal waxaanu doonaynaa dhan kasta inaynu ka eegno Somaliland maxaa ka khaldan. haddaba sidaynu la wada soconno Somaliland shayga ugu weyn ee ka khaldan waa halbeegii aqliga iyo dadka lagu jahayn lahaa waana ta Somaliland ay maanta u dhimanayso ee aan u baahnayn aanan la isku sawiro ee u baahan aqli iyo jaro siyaasadeed oo loogu hago shacabka Somaliland. shacabka Somaliland in badan waxay la tacaalayaan nolol maalmeedkooda inagoo sidaa og ayaa haddana gobolka Sool waxa lagu soo qaaday weerar ciriya dhul ah oo dad badan ay doonayeen aragtiyahooda siyaasadeed inay soo dhex mariyaan halka xukuumadda Hargeysa joogtayna ay ku mashquulsanayd alamo iyo xaflado. bal hadda waxaanu eegnaa Somaliland maxaa ka khaldan sidee baa lagu ogaaday hagidda siyaasadda xukuumadda Somaliland kartideeda iyo tacabkeedu inta uu gaarsiisan yahay. waxaanu wada ognahay in magaalada Laascaanood ee gobolka Sool in shaqaaqa ballaaran ay ka dhacday laakiin shaqaaqadan sidee buu uga sii digay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Mr. Cabdirasaaq oo kamida golayaasha laga soo doortay gobolka Sool ahna ninka saddexaad ee talada dalka Somaliland ugu sareeya markuu madaxweynaha la wadaagay aragtida saxda ah ee ay Sool u baahan tahay iyo siyaasadda ay wax u soo kordhinaysa gobolka Sool. Somaliland kama dhigaysan waxaana u aragtay sidii qof mucaarada oo isagu iska jibeysan taladiina waa laga la orday laakiin maanta waa lala soo orday xaalku halkeebu maraya sidaynu la wada soconno xaalka Somaliland ee magaalada Laascaanood cidna faro ugu ma jiro cid kastaana warwar bay ka qabtaa gobolkaasina haddii faraha ka baxo wuxuu noqonayaa bahala galeen cidina ma doonayso sidaa in xaaladdu u dhacdo. halkan waxa idinka muuqda wasiirkii gaashaandhigga iyo wasiir kale oo isaguna gobolka Sool ka soo jeeda. sidaynu la wada soconno Somaliland waxay tahli kar weeyay dhacdooyinkii ka dhacay gobolka Sool iyo magaalada Laascaanoodba inay si xor ah oo madax bannaan dadka ugu soo bandhigto dilalkii dadka geystay inta ay dacwadu ku socoto inta lagu helay iyo inta lagu waayay. taas fursadeedii iyo bedelkeedii waxa qaatay dad kale oo aragtida Somaliland ka soo horjeeda dhagihii doonayay inay wax maqlaanna wuxuu sheegay. haddaba xilligan maxaa taladii loogala cararayay Cabdirasaaq xilligan loola soo cararay Somaliland waxay u baahan tahay mar kasta inay yeelato aragti ah maxaa la wada leeyahay maxaa la kala leeyahay. xukuumaddu Somaliland waxay bilowday in ciddii aragtideeda tiraahdo halka waxba ka khaldan ay ku calaamadayso cadawga Somaliland laakiin maanta cadawgii Somaliland waayo ma Cabdirasaaq ba ma xisbiyada mucaaradka ba ma dadka la laayayba ma dadka aan wajiyadooda la aqoon ee dadka madaxa ka toogtay Laascaanood iyo gobolada kale ku toogtay ba mise waa dadka haysta dhigaha shacabka reer Sool. Somaliland waxay u baahan tahay inay qeexdo yaa dalka diidan yaa talada xun ee aan meelna u socon yaa diidan markii la kala sooco arrimaha yaa wax kula leh yaa wax kula lahayn iyo Somaliland halkeebay u baahan tahay inay marto. Somaliland markaasay helaysaa aqligii iyo taladii ay u baahnayd. waa anigoo Cabdirasaaq Axmed Jaamac oo idinkaga tegaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigu dulmi kuguma hayo daraasaad ceeb sameeya marnaba kula doonan ma hayo hadduu dumay caashiqeehayni intan dooqon soo kaxaysto xantada daliilin mayo dadkii adika xumaana damiirku iraacin mayo ضميركو إراعين مايو أنيقو ظلمي كوغو محايو دراسات عيب سمية مرنا بكولا دونا ما هايو عدو دومي عاشقي حيني